الرحيم casharkan maanta waxaan ku baranaynaa sida Windowska computerka loogu shubto anagoo isticmaalayno virtual machine hadduu ahaan lahaa Windows 7 hadduu ahaan lahaa Windows 10 Windows 8 midka aad rabto markaas inaad ku shubato computerkaaga maanta waxaan casharkeena ku baranaynaa sida computerka loogu install gareeyo ama loogu shubo Windowska marka waxaan isticmaalaynaa virtual machine ayaan isticmaalaynaa marka hore virtual machine-ka ayaan soo dejinaynaa marka xigtana waxaan image-ki Windowska ayaan soo dejinaynaa marka labadaas waa inaan marka hore aan sameynaa kadib ayaan installation-ka sameynaynaa marka ugu horeyso waa inaa virtual machine-ka soo dejiso adigoo booqanayo virtualbox.org adigoo booqanayo markaad soo dejiso download ayaa sameynaysaa kadib haddana Microsoft ayaa booqanaysaa markaa booqato kadib ayaa waxaa soo dejinaysaa Windowska marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa inaan virtual box-ka soo dejino waxaan tegaynaa virtual box waa kana ujeedaa aan leenahay waxaan tegaynaa virtualbox.org meesha ku qoran mida kore linkiga iska hubi markaa iska hubiso waxaa sameynaysaa website-kii ayaa nala wadaa website-kii ayaa imaanay download qaybta bidixda downloads meesha ku qoranta ayaa click siinaysaa markaa siiso waxaad tegaysaa Windows hosting meesha ku qoran tahay maag ma rabno maaga ma u baahnin Linuxka ma u baahnin kuwaasna waa another maaragtay Windows waaye laakiin oo company kale laakiin Windowska Microsoft ayaan u baahannahay Windowska ayaan click ku siinaynaa oo noo soo download gareynayaa mujeedaa wuu wadaa wuu noogu shubayaa file explorer-ka haddaan tagno file explorer-kan ka fiirinayna downloadska labadaas meel buu ku dhigayaa in meeshaas uu ku dhigo iyo intuu ku dhigo marka waa kana wuu wadaa laakiin already waa soo dejiyey waa kana computerka waqtigu noo dhumin waxaan leenahay waa kana virtual box 7.8 kan ayaa click ku siinaysaa double click ayaa ku sameynaysaa waa ku install gareyn hadda waa soo dejiyey website-kan tagay waa soo dejiyey installation ayaan ku sameynaa inaan computerka ku shubo marka yes ayaa leedahay ani already waa soo dejiyey laakiin idinka ayaan intusayaa sida loo soo dejiyo wuu wadaa ujeedaa preparing to install next ayaa leedahay aniga already ugu jiraa marka next ayaa leedahay finish ayaa leedahay marka aniga waa kana intuu yaalaa iska cancel already waa kana intuu yaalaa mujid oral maaragtay Oracle VMware ujeedaa virtual box-ka waa kan intuu yaalaa hadda virtual machine-ka waa soo dejinay oo waa noogu jiraa computerka waxaan tegaynaa haddana Microsoft ayaan tegaynaa image-ki ayaan soo dejinaynaa waa kan waxaan leedahay Google-ka ayaa tegaysaa leedahay Windows 10 download ISO image download meesha ku qoranta ayaa click siinaysaa waa kana waxaad tegaysaa microsoft.com click ayaa ku siinaysaa markaa ku siiso click wuuna geynayaa wuu noo wadaa waxaa leedahay marka download now ayaa leedahay ani already waa soo dejiyey inaan mar labaad ku noqdo ma rabo oo inta ayuu igu jiraa haddaan intuso waa kana Windows meeshaas ayuu igu jiraa mujeedaa marka adiga waa booqanaysaa waa download ayaa leedahay intuu ku soo gelinaya marka hadda labadii Windows 10-kina waa soo dejisanay virtual box-kina waa soo dejisanay marka waxaan set up ku sameynaynaa virtual machine-kii ayaan set up ku sameynaynaa double click ayaan ku sameynaynaa waxaan create gareynaynaa computer qayaali ah ayaa computerkeena ku dhex abuureynaa marka computerka ku dhex abuurno kadib aan installation-ka ku sameynaynaa marka ani hadda computer kale ma isticmaalayo computerkayga ayaan waxaan ku dhex abuuray another computer adduunka caalamka hadda aad ayaa loo isticmaalaa wax la yiraahdo virtualization ayaa la isticmaalaa marka waxa waaye computerka ayaa waxaa dhex gashan kartaa intaasoo computer 10 computer ayaa dhex gashan kartaa waxay ku xiran tahay hadba xajmiga uu computerka qaad RAM-kiisa CPU-giisa iyo wuxuu ku xiran yahay iyo maaragtay RAM-kiisa
soo marka hard diskiga haysatid meeqa gigabyte waaye soo marka xajmiga ayay ku xiran tahay markii xajmigaaga computerkaaga uu weyn yahay so you can maaragtay ayaa soo dejisan kartaa intaasoo computer ayaa ku dhex abuuri kartaa computerkaaga ana hadda hal computer ayaan ku dhex abuuraya waxaan tegayaa waa kana uu ii furmay new ayaa meesha ku qoran tahay ayaan click siinayaa new waxaan magac u bixi u leeyahay computerkaaga cusub PC1 ayaan leeyahay next ayaan leeyahay backday horta intaan dhihin intaan ku dhigaa uu leeyahay meesha C idhiga ayaan leeyahay maxaa rabtaa uu yiri Linux maarta anaga Microsoft waaye waxaan leenahay marka Windows 10 64 bitkaas ayaa u baahan tahay kan ayaa u baahan tahay ujeedaa 64 bitka Windows 10 64 bit ayaa u baahan tahay Windows 10 64 bit midka ugu hooseeya waaye next ayaan leenahay wuxuu ku leeyahay memorygaaga maxaan kaaga dhigaa 2 GB is okay CPU ga waxaan leenahay hal laba nooga dhig iska dhela aday afar muu dhahay saddex buu nooga dhigay ujeedaa so marka next ayaan leenahay so back dheh hard drive ka maxaan kaaga dhigaa uu leeyahay waxaa iga dhigtaa 25 waxaan leeyahay next dheh finish waa kana computerkii uu ii abuuray markuu ii abuuro waxaan tegayaa settings ayaan tegayaa markaan tago waxaan tegayaa system meesha ku qoran tahay wuxuu leeyahay memorygaagii samir ayuu siinaya memorygaagi waxaa waa 2 GB displayga ayaan tegayaa processorka ayaan tegayaa waa 3 asna waa dayaason sameynay displayga 128 is better that one waxaan leenahay storage ayaan tegaynaa storage markaan tagno waxaan tegaynaa empty meesha ku qoran tahay meeshaan CD gu ku qoran yahay ayaa kaliya ku siinayna qaybta kale haddana waxaa tegaysaa oo bidixda ku taal midigta ku taal geeska waxaa click ayaa ku siinaysaa waxaa leedahay choose disk file macnaha locationka ayaa dooranaysaa meesha Windowska noo yaalo click ayaan ku sameynaynaa waa kana downloadka ayuu nageeyay download folderka ayuu nageeyay imagekii oo ISO fileskii oo maaragtay aan soo gashanay computerkeeni aan kusoo dejisanay ayaan click ku siinaynaa open ayaan leenahay marka Windowskii inuu geli ayaan leenahay okay ayaan leenahay kan kor noogu qaad waxyar okay dheh wuu noo geliyay mujeedaa so marka waxaan leenahay noo bilow noo daar hadda macnaha imagekii ayaa noogu jiro adiga marka hadda computer caadi ah Windows ku shubinayso CD ama USB isticmaalaysid marka computerka uu soo kacayo intee ka soo kacayo ayuu ku leeyahay so you have to choose maaragtay boot upka wuxuu ku leeyahay CD aan ka soo kaca ama USB marka waa inaad ku aadisaa BIOSka inta gasho ayaa waxaa ku aadinsan aan hadda virtual machine ayaa isticmaalaa laakiin waxaan ka hadlayaa markii computer caadi la isticmaalayo waxaad tegaysaa BIOSka dan waxaa meeshuu ka soo kacayo computerka CD ma ka soo kacaya USB ma Windows kugu jiraa waa inaad doorataa so marka kaasna waa u baahan tahay haddaa YouTube ka gasho so you can waa arki kartaa qolooyin baa soo gelgeliyo laakiin hadda virtual machine ayaan isticmaalaya so marka start ayaan leenahay wuu wadaa wuu noo wadaa marka qaar ayuu kaa diidayaa wuxuu ku leeyahay ma soo kacayo virtual machine-kii macnaha maxaa yeelay waa inaa on ka dhigtaa waa inaa BIOSka inta gasho on ka soo dhigtaa maaragtay aan hadda recording ayaan sameynaya haddii aan damiyo computerka oo aan soo kiciyo videogii recordka ayaa iga go-aya so marka laakiin BIOSka inta tagto cashar kale ayaan waxaan isku dayaa inaan ku sameeyo BIOSka inta tagto ayaa waxaa virtualization-ka ayaa maxaa la dhahayay on ka dhigaysaa so marka on ka dhigto virtualizationka marka on ka dhigto then you can maaragtay install maaragtay virtual boxka virtual machineka computerkaaga haddiisan on uu ku ahayn oo disable uu kaa yahay ma samey kartid maaragtay virtual machine hadda wuu noo wadaa ganacsiga wuu wadaa marka sometimes takes time waqti ayuu qaadanayaa iska cancelkan marka qaar takes time pause ayaan leeyahay videoga
boost gareynayaa because it takes time, waqti ayuu qaadanayaa. Computerka xataa wuxuu ka dhigay maxaa la dhahaye it's too slow because ramkayga maaragta computerkayga ramkiisa ayaa aad u yar, so marka computer kale maadaama aan ku shubaayo it's a bit slow, xoogaa it's too slow waaye. Recordingki ayuu noo soo kiciyey, waa kana kan iska cancelasna auto capture ayuu leeyahay. Waa kana wuu noo soo saaray, wuxuu leeyahay dooro waxaad doorataa English United Kingdom, okay waaye. Adiga wadanka markaas aad joogto ayaa dooranaysaa. Soomaaliya ma ku jiraan umaleynayo, Soomaaliya ma lahan, install ayaa leedahay. wada mjeedaa set up is starting. Installationka ayuu sameynayaa hadda. Installationka ayuu sameynayaa marka wuxuuna geenayaa hadda marka inaan abuurano hard drive-kii space-ki inaan abuurano oo waxaan ka dhigi karnaa partition ayaan sameyn karnaa. Intaasoo maaragtay C iyo D iyo E ayaan sameysan karnaa oo maaragtay hard disk-kiina ayaan kala gogosan karnaa. So marka waxaan ka dhigi karnaa 3, haddaanan hal aan u dhaafi karnaa C keliya ayaan ka dhigi karnaa, haddaanan 2 ayaan ka dhigaynaa, D ayaan ku daraynaa haddaanan. So marka hadda set up-ka qaybtaas ayuuna geenayaa, marka waa iska sugaynaa, no rush. Installationka markuu sameynayo xoogaa takes time, waqti ayuu qaadanayaa. iska sugaynaa, be patient. waa kana because wuxuu leeyahay key geli oo maaragtay license-ka qofka uu maaragtay Windows-ka markaad soo gadato wuxuu ku weydiinayaa keys, uu ku weydiinayaa. So marka anaga hadda keys ma haysano oo maanta waxaan iska isticmaalaynaa waa iska demo oo trial ayaan isticmaalay. I don't have any product key ayaan leenahay. I don't have any product key. wuxuu ku leeyahay maxaad dooranaysaa Windows-ka noocee rabtaa, home ma rabtaa, maxaa rabtaa home edition ma rabtaa, pro ma rabtaa. waxaan leenahay Windows 10 pro ayaan leenahay, next ayaan leenahay. 64-ka dooranaysaa, mjeedaa 64 bitka all 64 waaye. 32-na waa jiraa laakiin 64-ka ayaa ku quseeya, qaybtaas ayaa dooranaysaa. waxaan leenahay marka accept license-ka ayaan aqbalaynaa, license-ka shuruucdii. waxaan leenahay upgrade ma rabtaa oo Windows hore kugu jira ma upgrade ku sameynaysaa ama custom ayaa sameynaysaa, custom installation noo samee ayaan leenahay. waxaan leenahay new, haddaarnu maaragtay dhowr xaba ayaan ka dhigi karnaa. waa kana partition-ka digsiga hard drive-kina ayaan kala gogosan karnaa, ma rabna laakiin hal xaba nooga dhig ayaan leenahay. Okay ayaan leenahay. Okay ayaan leenahay. marka waxaan sameyneynaa wuu noo wadaa next ayaan leenahay. marka waa kana marka wuu noo wadaa computerkii ayuu hadda Windows-ka ayuu ku shubayaa. marka hadda Windows-ka ayuu noogu shubayaa marka. So marka markuu dhameeyo marka waqti badan ayuu qaadaa, maybe waxaa laga yaabaa 1 hour inuu qaato, computerkii inuu 1 hour qaato ayaa laga yaabaa. marka waxaan sameyneynaa wuu wadaa 0% waaye ilaa 100 ayuu gaarsiinayaa. So marka markuu saan ugu shubo wuu dhameynayaa. So marka computerkii saas ayuu kugu abuurmayaa, computerkii Windows-kii maaragtay saas ayuu computer. marka adiga waxaa sameynaysaa in aad maaragtay computerkii magac u bixiso, password u sameysato. anaga hadda waqti badan ayuu nagu qaaday, laakiin inta ugu muhiimsaneyd hadda waa idin tusay oo maaragtay saas ayaa computerkii Windows-ka loogu shubaa oo maaragtay loo ugu create gareeyaa maaragtay